daawada maanta waxaynu sheegaynaa 10 arrimood oo ay tahay inaanad cidna aanad u sheegin naftaada kaliya ay u gaar ahaato waa 10 shay oo ay tahay inay sir adiga ku ahaato cid kale hadaad gaarsiisana dib bay ku keenaysaa 10 shay koow waxa ka noqonaya waa in ahdaafta shakhsiga ee aad dejisatay iyo mashaariicda shakhsiyan aad adigu wadato ee rabto inaad samayso cidna iskaga sheeg haddii aad rabto inaad ganacsi abuurto oo fikrad ganacsi aad haysato ama ahdaaf baad dejisatay ama mashruuc baad rabtaa oo runtii waxbarasho inaad qabato cidna ha u sheegin sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay koow markaad qof u sheegto qofkan wuxuu noqon karaa qof wanaagsan oo ku jecel markaad fikradda u sheegtay waxa aad wadatay ahdaaftaada iyo mashaariicdaada intuu ku farxo ayuu ku amaanaya markuu ku amaano dib baa kugu imanaysa markuu sidaa ku amaano sida cilmi nafsiga ay sheegayaan markuu ku amaano naftaadu raaxay dareemaysaa sacaadiye raaxayr baa dareemaysaa nafis baa dareemaysaa taasi waxay keentaa hormoonaad bay soo saartaa hormoonaadka markay soo saarto qalbigii ay u dirto maxaa imanaya maskaxdii waxay aaminaysaa hawshii la qabtayba maskaxdii waxay aaminaysaa in hawshii la qabtay taasi maxay kugu keenaysaa hadhow markaad hawsha istiraab bilow in caajis iyo daal iyo dib u gurasha kugu dhacdo sababtu waxa weeyaan amaantii aad heli lahayd markaad barnaamijkan qabato ama mashruucan qabato ayaad sii qadimatay marka already naftaadu way heshay mooti amaantii marka mar laba inay hawshii qabato caajis bay ku keenaysaa caajis baa imanaya iyo runtii daal taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa laga yaabaa qofkan aad u sheegtay inuu yahayba qof runtii aan ku jeclayn ama qof dee laga yaabo dhinaca kale inuu wax ka eego dhinaca salbiga inuu wax ka eego laga yaabo inuu hawshan aad ka hadlaysa iyo ahdaaftan iyo mashaariicdaadanba ma soconayaan hore loo soo jijaabiye taasi adii maxay kugu keenaysaa niyad jab bay kugu keenaysaa inaad wixii ka niyad jabto oo wixii aanad bilaabin qodob kalena u dhici karaa markaad istiraado waxan aad wadatay mashaariicda dadka qaar la sheergaree taladaa kugu badanaysa intaasoo qof baa tala ku siinaya qofba dhinac buu ka eegaya hadhow maxaa imanaya qaabkii aad rabtay intaad ka leexato inaad istiraado qaabkii dadkan ay u rabaan ama qaabkii kuugu sheegeen inaad u qabato kadibna aad gaari weydo hadafkaagii ama sidii aad rabtay wuxuu noqon waayaan waxaa kaloo dhici kartaa markaad dadka ahdaaftaadii mashaariicdaada aad u sheegto ay dadku ogaadaan ina baqaba ku galaba oo istirado niyo haddii aad muxuu hawsha qaban weydo ama si qaldan u qabato bilaa dadku ku caayaan bilaa sidii ay filanayeen aad noqon weyda markaa baqaa ku galaya oo kalsoonida ba ka lumaysa sidaa daraadeed waxaa daawada muhiim ah hawlahaaga runtii mashaariicda ku saabsan iyo ahdaaftaada shakhsiga ujeedooyinka aad noloshan ka leedahay rabtay inaad gaadho cidna ha u sheegin arinta sidaa maxaynu u leenahay waxaan u leenahay iska daa in runtii cilmi nafsiga waxaan ay ka hadlaan xadiis baa ku soo arorayba istaciinu ala qada'i hawaijikum bil kitman wa hadith sahiha wa albanu sahiha weeyaan yani hawlihiina idin gaarka aad qabsanaysaan baahihiina gaarka ku kaalmaysa si muxahay qarsoon oo si qarsoon u qabsada oo dadka hawada sheegina marka qodobka koowaad wuxuu ku leeyahay daawade waa in sir ku noqoto hawlaha gaarka ah ahdaaftaada iyo mashaariicdaadu qodobka labaad ee la raba inaan cidna u sheegin oo sir ku ahaado waxa weeyaan haddii ixsaan aad samayso haddii wanaag aad cid u qabato wanaaga cidaad u qabatay ha sheeginde qof faqiirad caawisay qof dhiban baad wax fiican u qabatay in khayr baad qabatay qof aad u samaysay qof baad shaqo geysay ha sheegin haddii aad sheegto wixii wanaageed samaysay laba dhib way keensanaysaa in qofkii waxaan aad u qabato ku nacaba marka qof meel aad shaqo geyso oo maalin kasta tira hebel baa shaqo geeyay halkaas leedahay qofkaas amaan buu ku hayaa nacayb buu ku qaadaya sababtoo meel kasta markuu ka maqlo hebel baa meesha ku geeyay aakhirka ku nacaya taasi waa mid muhiim ah talabaad ka dhici karta waxa weyn wanaagii aad samaysay markaad sheegto inaad ajarkiisii weydaba oo man iyo adan iyo adaba quraanku hadiiday in muxaayay runtii la raaciyo wixii wanaag la sameeynayo marka qodobkaas wuxuu ku leeyahay ruuxii wanaageed qof u qabatana ha sheegin aakhirada ajar heli hadaad qarisana waxa laga yaabaa inaanay sheekadu isqarino qofkan waxaad u qabatayba inuu soo sheegaa dhici karta oo halka amaantu kaaga timaado laakiin adigu waxba ha sheegin sir ha ku ahaato
qodobka saddexaad ay tahay inaad qarisaa wax weyn cidna aanad u sheegin khilaaf hadduu idin dhex yeelo adiga iyo reerkaaga mashaakil hadday jiraan adiga iyo reerkaaga iyo xaaskaaga adiga iyo zawjka ama ninkaaga hadduu khilaaf idin dhex yaalo ha sheegin mushkiladda ugu weyn waxay tahay labada qof is qabaa markay khilaafkii dhex yeelay ay dhexdooda ka dhex saaraan cid kale u sheegaan xalku aad buu adkaada bal waxa dhacda labadii qof marka cid kale u waramaan inay asraar faafiyaan oo gabadha ninkii ay wax ka sheegto ama ninku gabadhii wax ka sheego taasi maxay keensanaysaa ninku markuu maqlo hadalkii gabadhiisu ay ka sheegtay ee dadka kale ugu sheekaysay gabadhu markay maqasho ninkeedu hadalku dadka kale ugu sheekeeyey nacayb bay sii siyaadisaa kurri bay sii siyaadisaa inay isu imaadaan way adkaataa sidaa daradeed baa la yidhahdaa war khilaaf kasta oo jira mashaakil kasta oo dhex yeela labada qof ee isqaba waa inay si hoose u xalistaan xataa waalidka inay gaadhsiiyaan maaha keliya waalidka goomaad gaadhsiin kartaa iyo ciddii kale ee khubaro ah waxaad gaadhsiin kartaa marka waxba laga qaban kari waayo ay u baato cid kalena soo dhex gasho marka waa loo sheegaya laakiinse inta ka horeysa in la qariyo labada qof ay ku koobnaato ayaa aada u muhiima qodobka runtii arintaa kusii xigaa waxa weeyaan ee afaraad ee muhiimka waxa weeyaan ay tahay daawada inaad qariso wixii hantiya iyo nicmo ah ee ilaahay ku siiyey waxba ha ku faanin waa sheegin haddii dhaqaale aad haysato iyo alaab kale iyo adduun badan aad haysato dee inaad dadka usoo bandhigto oo tirado waxaanaan haystaa akoonka intaas ay igu jirta kaanaan haysta nicmadii ilaahay ku siiyey aad sidaa kolba dadka ugu faanfaanto ood u sheegto arrimo badan oo dhibaato bay keenta kow waxay keentay xasad oo dadka aan waxba haysan ee runtii muxuu ahaayey aad waxaan u sheegtay qaar badan inay xaasidnimada ku dhacdaa dhici kartaa bal qaar badan oo wax haysta oo kula midi inay ku xaasidaan baa dhici kartaa xaasidkaasina u dhiban kuu keeno waxa kaloo dhici karta il baa dhici karta cayn in ilba kugu dhacdo markaad wax soo bandhigto caruur baad ilaahay ku siiyey caruurtaadiiba inta sawiro qurux badan aad ka qaaday facebooka aad soo dhigtay bal ka waran markuu daawado qofaan ilaahayba caruur siinin markuu daawado ka waran waxaa dhici karta il inay qofkaa kaaga dhacdo markaa nicmooyinku ilaahay ku siiyey ku mahadnaq ku shukrinaq ummadana wax kala qabo laakiinse inaad ku faanfaantood kolba meel ku sheegto looma baahna waxaa kaloo dhici karta haddii nicamkii iyo wixii hantidaadii aad soo bandhigto khiira imanaysa dad badan baad isku kicinaysaa dad badanoo waxaa jira dee runtii aan jeclaysanan waxa aad sheeganayso guushaada dad badanoo necab baa jira markay guushaadii arkaan waxa laga isku dayma inay ku dhibaanba oo dhinac kale kaaga imaadaan oo waxaanad filinaynba lagugu bilaabaa dhici karta marka waxa lagu leeyahay war wuxuu ilaahay ku siiyeyna ilaahay ugu mahadnaq dadka kula joogay dee guriga aad wada deyntiin waad u sheegi kartaa iyaga reerkaaga iyo xaaskaaga dee waad la wadaagaysaa oo mahadda ilaahay baad kuwada mahadnaqaysaan laakiinse cid kasta inaad uga sheekayso iyo meel kasta aad soo bandhigto waa arrin aada looga fiican yahay weliba waa arrimaha aadka imika u dhaca facebookyada qofku in yaroo u korodhaba inuu markiiba soo dhigo taasi khatar bay kugu keeni kartaa qodobka shanaad ee dawada waxa weeyaan ay tahay inaad qarisaa cidna aanad u sheegin dembiye haddaad gashay akhtaabaad samaysay dembiyaad gashay waxba dadka ha u sheegin waxba saaxiibada ha u sheegin xalay waxaasaan sameeyey xalay dembigaasaan galay sidaasaan sameeyey arrintaasi khatar aada u weyn weeyaan bale diinta marka laga hadlaayo axaadiis baa ku soo aroortay ilaahay dadka inuu dembi dhaafo laakiinse dadka la jahra ee kor u qaada xumaantooda kuwaasi inay dembi dhaafkoodu uu meel adag ku jiro ay axaadiisu sheegayaan oo ay adagtahay loo dembi dhaafa marka runtii waxaa muhiim ah inaad dembigii aad samaysay inaad qariso weeyaan oonad adigu sheegin ilaahay oo kaliya u sheeg ilaahay u toobadkeen ilaahay dembi dhaaf weydiiso laakiinse xalay waxaasaan samaynay iyo waxaasaan sameeyey waa arrimaha khatarta waxaa laga yaabaa iminka adigu inaad asxaabtaada la sheergaranayso waxaasoo kale laakiinse beri ka maalin waa lagugu caayaya waa lagu rikool garanaya maalin waqti dambe maa lagu oranayaa soodigii waxaa sameeyey kaa miyaanad samaynin duminta lama sheego bale arrinta khatar waxay keeni kartaa mararka qaar in noloshaadaba ay baabisaba haddii sida in badan dhacdo laba qof oo isqaba oo qofku dembiyadiisii ka sheekeeyo dembigaasan sameeyey oo ninkay dembiye ka sheekay ama gabadho ay ka sheekayso maxaa iman kara labada qofba inay kala boodaan hal mar marka waxaa la yidhaha war wixii dembiya samaysay is astur ilaahna toobad weydiiso qodobka lixaad ee muhiimka waxa weeyaan ay tahay isna inaad qarisaa asraartaada shakhsiga waxyaalaha kuu gaarka noloshaada gaarka qari noloshaada gaarka waxa jira wax badan oo adig kuu gaar ah oo tahay inaad runtii aanad cid kale la wadaagin noloshaada gaarka ummadda ha u soo bandhig maanta waxa aada u khatar noqda runtii
marka social media laga hadlayo dadkii waxay soo wada bandhigayaan hawlahoodii gaarka ahaa bal arintaas marka qaar bay gaarsiisay dadka qaar inay soo bandhigaan cawraadkooda ay soo bandhigaan sawir aan loo baahnayn ay soo bandhigaan muuqaal aan loo baahnayn ay soo bandhigaan arintaas khatar weeyaan dawada wixii ku gaar ah ee shakhsiya marnaba ha soo bandhig waxana xayndaab arintan u noqonaya wax kastoo isleedahay waa lagu ceebeyn karaa ama mustaqbalka waxbay ku yeelayaan ama dhib bay ku soo jeedi kartaa ama diintu kuma ogola ama akhlaaqdu kuma ogola marna ha soo bandhig waa waxa ku gaarka dadka qaar buu oranaya bari tala safar baan u baxaya maxaa dhacay dad badan intii Facebook ku soo qoreen bari safar baan u baxaya in maalintii baxayeen gurigoodii la jabsaday leenkii tuuga Facebook ma ku akhrisay bari ka maqantay gurigii waaba u weydaartayba gurigiiba u jabsaday marka daawada waxa ku gaarka iyo shaqadaadii waxa walaha ku gaarka dadka la wadaag dadka ku gaarka kula jooga kula degan una kula socdaan qodobka runtii toddobaad waxa weeyaan ay tahay inaanad la wadaagin haddii cid kale lagaaga sheego fadiixo haddii cid kale lagaaga sheego fadixadaasi faafin ha sheegin waxa lagu yiri hebelkii aad taqaanay hebel xalay baa la arkay isagoo arin halisa xalay tolo ku jira la helay xalay tolo waxa dhacay hebel baa fadixada lagu qabtay hebelkii saaxiibka sidaas u sameeyay ceebaa lagaaga sheekay asxaabtaadii ama dad kale lagaaga sheekay ceebta lagu sheegay barta ku hay adigu ha sii faafin arintan waa arinta maanta aadka inoogu badan bulshadeena oo dhan bay aad u saameysay maalin kasta war baa lagu keenayaa xan ah oo qof la ceebeynayo ama ha noqdo qof mas'uul ah ama qof kale ha noqdo ama cid doonahado ama qof caan ha noqdo marka ceebeynta la ceebeynayo qof isagoo qofka rumaysan ayuu sii faafinaya Facebook baa la soo dhigaya YouTube baa la soo dhigaya isagoo ka fiirsan ayuu share saaraya like saaraya comment garaynaya oo sii faafinaya dambigeeda oo leedahay wax kasta oo afaafiso ceeb ah oo qof kale aad ku lagu ceebeynayo oo adigu afaafiso dambigeeda qayb aad ka tahay marka daawada isku day inaanad ceebaha dadka aanad faafin ceebaha dadka inaanad faafin oo halkooda ku joojiso oo halka ku asturto oo haysato oo cid kale aan la wadaagin taana isku day daawada qodobka 8aad waxa weeyaan ay muhiim tahay isagana inaanad cidna u sheegin waa mashaakilka iyo iyo waxyaalaha adiga ku qabsada dhibaatooyinka adiga ku haysta ee gaarka ku ah iyo mashaakilka gaarka ku ah ee ku haysta iyo waxyaalaha runtii dhibtooyin kugu ah mashaakilka adiga ku haysta cidna ha u sheegin haddaad cid u sheegayso oo cidii wax ka qabanayso kaleed u sheegi kartaa laakiin inaad calaaca la soo fadhiisato inaad saaxiibadaada u waranto maanta taas ay ku dhacday waxaas ay haysata dhibtaas ay haysata kaas ay haysata islaan kasta aad uga sheekayso oday kasta aad uga sheekayso mashaakilkaada aday dhib kugu keenayso balana cayb dadku ku qaadeen markaad noqoto qof ka sheekeyno calaacan wada oo markaas mashaakil yaro gaaro ku dhacayo ka sheekeynaya oo noloshiisu ay mashaakil tahay markay dadku ku arkaan laguma jeclaysanayo mashaakilka ku haysta ilaahay subxaanahu wa ta'ala la kaasho ilaahay xaqiisa aad ilaahay inuu kula xaliyo raadi cibaadadiisa badi laakiin bani aadamku waxba ha u calaacalan waxba dhibaatooyinkaaga ha u sheegin wax badan kaalama qabanayaan bal wax laga qaar badan kugu farxaanba oo ay muxuu hayaa runtii ay inta adigu islaada way ka naxayaan hoosta bay ka farxsayeen marka sabirkan la sheegana wax kala ma aha wanaad u adkaysato dhibtii oo sheeginde haddii already aad dhibtii sheegto dhibtaas ay haysata dee maad sabrin marka sabirka iyo dulqaadku waxay noqonayaan waxay kugu dhaca u adkayso u sabir ilaahay weydiiso sidaad uga bixi lahayd iyo dariiqad uga bixinayna dee raadi haddii cid jirto wax kaala qabanaysa laguma diidana inaad u sheegto waad u sheegi kartaa oo qaab sax ugu sheegi kartaa qodobka 9aad waxa weeyaan ay tahay inaanad sheegin waxa weeyaan haddii ay jirto cibaado ku gaar ah oo adiga ilaahay oo kaliya isku ogtihiin cibaadada ha ka sheekeena waxa la yiraahdaa sida ugu fiican waxa weeyaan qofka iyo ilaahay inay jirto cibaado u gaar ah oo cid kale aan oglabadooda kale isla ogyahay yaani inaad samaysato cibaado yar oo khafiyo qarsoon oo kaligaad ogtahay iyo ilaahay waxa la yiraahdaa waa shay nolosha qiimo gaar u sameeya salaada jamaacada masaajidka marka la eedaamo 5 minute ka hor baad masaajidka gashaa maalin kasta dabeecadaas leedahay 5 minute ka hor eedaanka inaad masaajidka gasho oo dhaqan aad u wanaagsan dhaqanka adiga og iyo ilaahay cidna ha u sheeg
hawraan aniga dabeecaddeeda waxa weeyaan masaajidka ma kala eedamo 5 minute ka hor baan galay waxba dadka u sheegay waa cibaado adiga ilaahay idin dhaxaysa waana ku anfacaysaa oo waxtar weyn bay leedahay balad isbedel walaayab leh kugu sameynaysaa marka arintu tahay arin sir ah adiga ilaahay idin gaara marka cibaadooyinka noocaas aad leedahayna cidna ha iskaga sheegin dawada qodobka ugu dambeyn ku soo khatimina waxa weeyaan ay tahay cidna inaanad u sheegin waa ruuxii sir ay qof kuu sheegay oo kiri waa sir cidna ha u sheegin sirta lama faafiyo marka wixii adiga iyo qof kale idin gaarana waxa muhiim ah inaad cid kale aanad u sheegin oo adiga gaar ku ahaato